soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaynu doonaynaa inaynu designkan isla sameyno waa social media post design saa designka halkan ka aragtaan marka koowaad waa kan designku marka koowaad waxaan u baahannahay inaynu cabirkiisa helno waxaan tegayaa markaa file inta waxaan odhanayaa new deetana halkan waxaan ka dooranayaa cabirkiisa waa 1080 resolutionkiisuna waa 300 iyo color murkiisa oo ah RGB intaa markaan sameeyo imika cabirkii waan soo furtay waxaan ku xigsiin doonaa guidelines-ka halkan nooga muuqda oo inaga caawin doona in design-keenu uu noqdo mid ku fadhiya cabir sax ah amaba qoraalkeena amaba sawiradeena kolba waxaan ugu talagalno in aanay hareerahan inaga gaadhin design-kaaga hadduu dhinacyadan gaadho wuxuu noqon doonaa mid aan soo jiidasho lahayn way markaan tagayaa saan u samaysto guideline-ka view deetana waxaan tagayaa guides deetana waxaan ka dooranaya new guide layout intaa markaan sameeyo margin-kaan shidayaa deetana dhinac walba waxaan ka dhigayaa 20 pixel baan ka dhigaya okay baan siinayaa markaan intaa sameeyo marka koowaad sida design-ka caadiga waxaa lagu bilaabaa shapeska design-keena nimka shapeska ku jira waxa weeyaan 1 2 3 4 fukushinta shape ayaa ku jira marka laga imaado qoraalka iyo icons-ka way marka koowaad marka shape-kan aynu ka bilaabeynaa waxaan tegaynaa markaa rectangle deetana qaabkaasaan usoo dhigayaa intaa markaan sameeyo waxaan dooranayaa markaa colorkaan rabo colorkaasaan isticmaalayaa saad aragto markaa wave-kan ayuu ka samaysan yahay rectangle-kaygu saan wave-ka ugu sameeyo waxaan tegayaa carpenter tool oo halkan inoogu jira deetana point baan halkaa ku darayaa kor baan u jiidayaa okay baan odhanayaa halkanna point baan ku darayaa hoos baan u jiidaya marka waxaan helayaa wave-kii halkan inooga muuqday sidaad arkaysaan deetana waxaan doonayaa kan labaadna inaan sameeyo marka si aan waqti badan nooga qaadan waxaynu sameyneynaa duplication ama waynu koobiyeyneynaa waxaan tegayaa kan deetana layerkiisu waa kan waxaan odhanayaa markaa control iyo j marka waxaa laii sameeyey 2 layer oo uu shape-kani ka samaysan yahay deetana waxaan sameynayaa inaan bilaabo markaa kan colorka ka bedelo kaa hoosaan istaagaya markaa waxaan ku noqonayaa halkan deetana filkayga waxaan ka dhigaya gradient deetana labadaa color ayaan u sameyn doonaa kor baan u qaadayaa anigoo isticmaalay arrowga halkan markaa waxaan ka dhigayaa angle-ka 0 deetana waxaan ka riixi doonaa transform-kayga ama control T intaan idhaahdo ayaan hareerahan qaabka u janjeerin doonaa intaa markaan sameeyo waxaa igu xigi doonaa shape-ka ninka ka dambeeya oo shape ah circle deetana waxaan tegi doonaa shape deetana circle baan dooranayaa qaabkaasaan markaa u sameynaya circle-kaygii saa war arkaysaa markaa circle-ku colorkan guduhu ka xidhan yahay colorkan dibadda u furan oo gradient ah deetana qaabkaasaan u sameynaya qaabkaa markaan usoo dhigo sawirkii ninkaan keenaya meesha isaguna waa kan waan soo jiidaya simboly ama waxaa odhanayaa si aad ii fahantaan file deetana place deetana halka ku jira soo dooro deetana sidaa u keen qaabkaa markaan u dhigo sida aan rabo intaan rabo aan leekeysiiyo waxaan hoos marinaya markaa labadan shape saa arkaysaa labada shape xaggan ay hoos yaalaan kanna isagaan hoos marinaya qaabkaa markaan u sameeyo waxaan ku xigsiin doonaa background-ka yar aad halka ka arkaysaan oo isaguna halkan iigu jira isaguna waa kan deetana halkan aan soo dhigayaa isagana waan ugu hooseysiinayaa deetana waxaan ka dhigayaa linear band opacity-gana waa yareynaya intaasoo kale ayaa iga badan waay intaa markaan sameeyo qoraalkiiba markaa imika isoo hadhay
shaybiskii iyo sawirkii intii dhisaankayga ugu muhiimsanayd waan soo sameeyey. way qoraalkan waxaan u samayn doonaa qaabkan digital marketing agency. way tagas baan tegayaa halkana fartaan rabaan ka dooranayaa inta badan fartan aan isticmaalayaa deetana waxaa odhanayaa inaan halkaa dhigo deetana digital ayaan qorayaa colorkana markaa siinaya anigoo halkana ka dhigi doonaa regular ka dhigi doonaa. way halkaa markaan soo dhigo waan koobiyeynayaa alta anigoo haya ama mar labaad baan qori karaa digital marketing aan qoro halkana haddana waan koobiyeynayaa alta anigoo haya agencyna waan qoriya. intaa markaan qoro fartan dee way kala duduwantaysa arkaysaan tan colorkeedu uu duwan yahay tan marna small bay tahay ama aan idhaahdee regular bay tahay tan bold bay tahay qaabkaasoo kale inaan fartayda u qurxiyo ayaan doonayaa. intaan soo wada doorto ayaan horta fartayda alignmentkeeda saxayaa. intaan fartii wada doorto ayaan halkaas sare tegayaa waxaan odhanayaa dhinaca bidix ka alignment garee deetana waxaan tegayaa kan 2 jeer baan ku dhufanayaa waxaan dooranayaa markaa black midabkiisana waxaan ka dhigi doonaa midabkaa halkaa ku jiray gradientka ah markaa isaga markalaan sameynayaa waa arki doontaa. kanna waxaan ka dhigayaa black. qaabka marka lagu dooro kan midabkiisu waa green ama gradientka halkan nooga muuqda deetana isaga intaan dul tago ayaa waxaan tegayaa effects deetana waxaan odhanayaa gradient overlay deetana halkan waxaan ka dooranayaa midabka gradientka oo aan soo diyaarsaday marka hore halkana waxaan ka dhigaya markaa 0. qaabkaasaan markaa aan u sameeyey fartaydii. way waxay igu xigi doonaa linekan iyo qoraalka yaro kooban deetana linekan waa iska rectangle caadiya halkan aan ka bilaabayaa saasaan odhanaya. way lineki yaraa koobnaana aniga sameeyey qoraalkii yaraabaa ii hadhay marka halkan aan kasoo qaadanayaa qoraal iska dhifoola deetana tanaan soo koobiyeynayaa waxba uma baahin inaan tagas qoro kale deetana waan ku baas gareynayaa fartan yaryareynayaa halkan waxaan ka dhigaya small maadaamay body tahay fartani. way intaa markaan soo qoro waa isku yar dhaweynayaa iyada medium baan ka dhigaya farta deetana alignmentka iyadana xaggaasaan ka simayaa. intaana waa anigaa saa u sameeyey. waxay igu xigi doonaa get started kana aada u yar khafiifiyo. get started baa markaa sameynaya anoo rectangle isticmaalaya saawada arkaysaa markaa 0 baan ka dhigayaa amaba 0 ayaan odhanay aan iska badiyo. gradientkana waxaan ka dhigi doonaa midabkan aan imika inta badan aan isticmaalayay deetana waxaan ku qorayaa un get started started. qaabka markaan u qoro markaa waxaan ka dhigayaa midabka caddaan baan ka dhigayaa way intaa markaan sameeyo dan doono kawital baan ka dhigi karaa sida designka kale hore aan sameeyey dan doonana small baan ka dhigi karaa desan maanta wax dhibaatiyo kuma jiraan kolba dee designka qofka sida la qurux badan buu ka dhigayaa. waxaan ku qorayaa marka tegaskan yani nabaradii informationkii iyo lagala soo xiriirayay iyo iconskaas baa ii hadhay marka. way intii horeba waan sameynay intana waxaan doonayaa inaan markaa ku darno. way kana koobiyeynayaa simbale halkaa markaa waxaan ugu talagalay loogadayda inaan hadhow dhigo designkan haddaad isticmaalayso logo. way halkan
waxaan soo dhigi doonaa tagaskii kanaan soo koobiyeystay deetana midabkiisa caddaan baan ka dhigay deetana waxaan ku qori doonaa wixii informationa halkan nagala soo xidhiidho more information call us intaa markaan qoro halkaan soo dhigayaa oo koobiyeynayaa saan u qoro qoraalkii kale ama numberkii bool baan ka dhigaya markaa numberka deetana sidii caadiga ahayd baan numberka u qorayaa numberka markaa wayna weyneeyaa exactly intaasaan ka dhigayaa waxaa igu xigayaa iconkan numberka hor yaalla iyo intaa yaro kale horta kan waan koobiyeynayaa waxaan ka dhigayaa halkan website-kii www website.com markaa website-kii waan ku qorayaa markaa inta badan aynaa kuwan hoos iskaga soo dhigaa markaasoo kale intaa markaan sameeya iconiskii baa hadhay halkan aan kasoo qaadanaya markaa iconiskayga callkii oo kale kan oo kale aan soo qaadanaya callka deetana halkaan soo dhigayaa markaa waxaa odhanaya gradient inaan isagana siiyo midabkan daymakaan isticmaalayay deetana qaabkaasaan u siinayaa anigoo tegaya fgas horeynu soo aragnay sidoo kale kana waan soo qaadayaa halkan aan keenayaa waa website-kii isagana halkan aan keenayaa isagana waxaa siinaya fgas color gradient ah isla isagii umaan siinayaa wixii dambe automatically igu qaadanaya halkaa waxaa markaa igu haray saddexdaa icon saddexdana halkan igu jiraan waan ka soo qaadan doonaa waxaan jecelahay markaa in muuqaalka intiisa badan aad ka bogateen si fiicanna aad u fahanteen saaxiibayaal insha allah designkan oo bsd ah waxaan idiin dhigi doonaa linkiga hoose si aad practice ugu soo sameysaan hadaa u baahan tihiin hadii ilaahay dhaa kuwana markaa qaabkaa waxaan u sameynaya markaasaan isku leekeysiya marka hore deetana qaabkan waan usoo dhiganayaa isku soo wada xidhay halkaasaan keenay loogadeedaan la simay deetana waxaan ka dhigaya hal mid si aana waqti ka qaado inaan kalara ku shubo deetana fgas baan siinayaa oo gradient odhanaya deetana qaabkaas ayaan u dhigay markaasaa waad arkaysaan designkeenii saasaynu ku dhameynay waad arkaysaan jasayg weeye markaa shadow baa ku jira ninka sawirkiisa iyo halkan yaroo kale qaabkaa waad ugu dari kartaa ninkaan dooranaya deetana fgas baan tegayaa darab shadow unbaa odhanaya deetana waxaad aragtaan in ninkii lagu daray in yaroo shadow markaa shadowgaagu wuxuu kasii dhigayaa more reality sawirkaaga insha allah designkan iyo designo badan ayaan halkan insha allah ku wadaagi doonaa fadlan subscribe gareeya channelka aad baa umahadsantihiin soo dhawaada